Bismillah, assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba kaadantahay isku soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaan sii wadaynaa barnaamijkeenii AVC Plus Colonin NC Plus qaybtii shanaad. Qaybtii afraad waxaa inoo mareysay ilaa iyo lambarka afraad oo u wareeji ah inaad qof kale aad AVC u wareejisid sidii caadi lacagta aad wareysay camal ahayd. Insha Allah qaybtan shanaad waxaan isku dayi doonaa inaan ku dhameyno qaybta shanaad number 5. Number 5 wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 5 qodob ayuu asaga kaligiis ka kooban yahay. Marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah anagoo in badan fast forward sameynayno inaan bal soo koobno oo asagana haddaan wada sameyno xataa qaar ka mid ah oo badan aan sameyno. Waa kana isku soo noqonaynaa marka. Okay, saa hore usoo sheegnay lambarka shanaad wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 5 qodob ayuu u kala baxaa oo qaybta koowaad last action, wareejintii u dambeysay, iibsashadii u dambeysay, last 3 actions iyo email me my activity. Markaan waxaa jiraan 2 more variables, 3 variable oo aan kusoo dirnay emailka f lead iyo l lead oo yacni first lead ayaan ka wadaa iyo last lead. Arki doonaa soo isticmaalayna marka 3 variable inay nagu soo kordheen iyo sidoo kale ayaan iloowin aqoonsi oo AQ aan ka soo gaabiyay 4 variable ayaan ku soo darnay. Come back sida caadiga ahaydna mar walba waxaan iska jeclahay inaan wax iska comment gareeyo 5 qodobna waa kaasa oo aniga aan comment gareynay iyo mid u dambeeya fadlan lambar sax door ah. يعني هدي number 5 wax ka weyn uu doorto. Waa soo boobsinayna haddana mar kale waa isku soo noqonaynaa. Lambarka shanaad qaybtiisa koowaad waxaase last action ayaan ka wadaa tii ayaa ka maqan waad dareemi kartaan. Lambarka shanaad qaybtiisa koowaad yacni waa iska static oo anaga hadda maadaama wax database lambara kale aanan ku xirnayn just qoraal iska static ayaan qaadanay. oo waa kaasa qaybtiisa labaadna waan isku soo noqonaynaa. Okay, lambarka shanaad qaybtiisa labaad statementiga oo wareejintii u dambeysay 2 ayuu u kala baxaa. Labadii qodob iyo commentigooda ayaan soo diyaarinay isku soo noqonaynaa haddana. Okay, lambarka shanaad qaybtiisa labaad oo ah wareejintii u dambeysay labadaas ayay ka kala kooban tahay. Qofka marka ugu horeysa labada ka mid ka soo doorto waxa laga dalban doonaa inuu soo geliyo telefoonkii oo yacni telefoonkii uu diray ama telefoonka uu ka helay. Haddii uu soo gelin haddii transaction uu jiray waa loo daawaci doonaa anaga maadaama wax database aan ku xirnayn no transaction ayaan iska daawacnay labada meelba oo waa just static message. Haddii wax ka baxsan uu doortana waa fadlan lambar sax dooro. Sidoo kale lambarka saddexaad oo ahaa iibsashadii u dambeysay qofka waxa laga dalban doonaa inuu soo geliyo aqoonsiga ganacsiga AQ ayaan iskaga soo gaabsanay waa variable date. Kadibna haddii transaction uu jiray waa loo daawaci doonaa anagana hadda maadaama transaction aan haynin static message ayaan iska daawacanay. Okay, taasi waxay noo gudbinaysaa lambarka shanaad qaybtiisa afraad oo ah last 3 actions. hal mar ayaan isu raacsanaynaa caadiyo emailka kadib waan sharxaynaa idan. Okay, lambarka shanaad qaybtiisa saddexaad qaybtiisa afraad oo idan ah last 3 actions iyo qaybta afraad oo email me my activity ayaan isu raacsanay. qaybtan afraad oo last 3 actions waa simple. qofka waxaa la dhihi doonaa message-kaas ayaa loo soo daawacaa waqti xaadirkan hadda aan joogno. maybe mustaqbalka hal sano waxyaabo kadib haddii aad sameynaysid inay isbedesho laga yaabaa oo waxaan oo dhan nooc kale ay noqdaan. laakiin hadda waa sidaas. kadibna qofka fariin ayaa u dhici doonta anaga maadaama waxaan dhan ay static yihiin fariin jiraysa just waa wax shaashad ka soo muuqanaya anaga beeninaynaa. lambarka shanaad oo ah email me my activity qofka marka u horeysa waxa laga dalban doonaa inuu emailka soo geliyo. emailku waa kii aniga date variable-ka noo aha aan soo qabsanay kadibna shaashadka clear garay. kadib waxaa laga dalban doonaa inuu soo geliyo taariikhda hore
inta waa taariikhda dambe. Sorry. Wuxuu soo geli doonaa taariikhda hore inuu soo geliyo yacni range waaye marka email mima activity leeda tusaale camal 2016kii bishii kowdeedii camal ilaa iyo taariikhda dambe oo ayadana qofka laga dalban doono. Anaga hadda sample ayaan iska qaadanay oo 1 bisha 5aad saas camal ayay noqon kartaa. oo hadba adigo waqtiga aad marayso waaye range si aad reportkaada u heshid taariikh ay ka bilaabanayso taariikhda 1aad iyo taariikhda 2aad oo ah midda dambe inaad dooratid. hadda waa soo gelinaysaa kan koowaad qofka markuu soo geliyo waxana waa iska sample oo qofka wax lagu fahansanayo. EG ayaan 2 jeer soo oriyay inta ayaan ka rabay. kadibna taariikhda 2aad ayaa laga dalban doonaa sidoo kale inuu soo geliyo. markuu soo geliyo meesha waa laga create gareynaa oo aniga 2 taariikh F date first date iyo L date oo last date ayaan qaadanay. kadibna qofka waxaa loo daawan doonaa fariintaasi ah in activity-giisa ama email-kiisa loogu soo diray email-kii qofka uu soo gelisay. So wax badan ayaan isku dul sameynay 2 ilaa 3 ka mid ah ayaan tijaabinaynaa marka. Okay, pinki waan gelinay lambarka 5aad ayaan u soconay 5tii qodob baan haysanaa. maybe waxaan tijaabinaynaa ka bilaabaynaa qodobka 2aad aad ka heshay ayaan tijaabinaynaa. telephone number iska geli markaas transaction ma jirin maadaama waxaan static ay yihiin marka run garay. pinki lambarka 5aad ayaan rabnay. maybe taamkan waxaan tijaabinaynaa lambarka 3aad sorry 4aad ayaan ka wadaa. okay halkaas ayadana waa just static message iyo ugu dambeyn lambarka 5aad ayaan tijaabinaynaa marka run garay. lambarka 5aad qaybtiisa 5aad waxaas aan soo clear garayno. That's not good. System CLS ayaa naga maqan meeshaas. okay soo run garay. pinki geli lambarka 5aad qaybtiisa 5aad ayaan rabnay. fadlan geli emailka aad waxaas ka gelinayna waxaan hadda ma ahan wax sax ah. okay fadlan geli taariikhda 1aad tusaalaha camal nasiiyo waxaan dhahaynaa maybe 01 to alif 20 la soo dhaafay. taariikhda dambe maybe hadda waxaa la marayaa sax maybe 20ka bisha 11 2021 iska dheh. okay halkaas ayadana emailkii aan soo gelinay oo aad waxaas iska ayaa xogta lagu soo diray ayaa la dhigaa. so that's it qaybtii 5aad ee EFC plus coloning in C++ ayadana halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. insha Allah qaybtii 6aad iyo more activity ayaan sii gali doonaa. sidoo kalena sidii hore camalba notepad-ka iyo sidoo kale code-ka ama source code-ka mega ama Google Drive mid ay noqoto ayaan soo saari doonaa description-ka hoose YouTube-kana waan soo dhigi doonaa halkaas ayaad ka heli kartaa. intaan markale dib ugu kulmi doono. assalaamu calaykum.